qofka waxbarashay geeyna abaal weyn banu hayaa waana u duceynaya waxa ay jeceshahay inay wax barato mustaqbalkana doonaysa inay noqoto doctorate. Tani waa sheekada Ikraan Jamaal waa 8 jir dantu ciishay. sheekadani maanta aad ku daawani doontaan qaybta dambe ee muuqaalka. anigu aad ay ii soo jiidatay. fadlan daawada ha gudbin muuqaalka adiga oo aanan dib u daawan qaybta dambe ee muuqaalka waan kugu sii dayni doona gabadha oo ka sheekeynaysa taariikhda iyo qaabkay u shaqeysa walibana shaqo inay tahay ay ka dhaxashay hooyadeeda. haddaba maxaa ku kalifay dhibtan gabadhan Soomaaliyeed? aabay waligi maan aragani hooyadiin baa iga sheekaysay shaqada baalishka hooyadii baan ka batay hooyadii baa baalishayn jirtay markaan bartay shaqada baalishka markaas ku yiri hooyadii iska daaniga noo soo shaqeynay. telefishinka waraysiga siisay ayaa sheegay in lagu caawin karo nambarka halkan kaaga muuqda. haddaba daawada gaarsii muuqaalkan dadka awoodo inay caawiyaan ama muuqaalka like oo channelka subscribe gareey si uu gaaro dad badan oo laga yaabo inay gaarsiiyaan dad caawin karo gabadhan yar ee walaasheena ah mustaqbalkana u baahan. Jamaal baa la yiraahdaa baalishkan ka shaqeeya sanad ban ka shaqeynay maalintii walaalkay baa noo shaqeeya anna gurigan ka shaqeeya galabtii aniga shaqeeya 15 kun waxa la qoro dadku noo heesiyaan bilaash hooyo caruurtii bay ilaalisaa cashadii bay noo sii karisaa noo sii diyaarisaa hooyaan aniga guudi iska daaniga noo soo shaqeynaya aad waa daashay haye bay igu tiri imika aniga galabta aniga baa shaqeeya galinka horena walaalkeen baa noo shaqo taga aabay aniga wuu xidhaya aabay waligi maan aragani hooyadiin baa iga sheekaysay qadadii hooyadii baa iga karisay weelkii aniga meela gurigii aniga hagaajiya caruurta meela qadadana 5 caruuraan naay aniga weyn waxaan naay 3 hablo iyo 2 inamood inka laba guriga joogta 3 naalkana joogna waxaan ayaan aniga soo shaqeeya maalintii ilaahay noo qoran baan helaa waxbana ma waayo caruurtaadii maadaama kan weeyahay waxaan go'aansaday inaan u shaqeeyo waan rajeynaa insha Allah mustaqbalka inaan rajeeyo haddii ilaahay yiraahdo waxbarasho waligi maan dhigan lacagan ku dhigtaba ma baysano qofka waxbarashay geeyna abaal weyn banu hayaa waana u duceynaya quraanka kariimka inaan dhameeyo hadhow marka weynaado waxaan noqonayaa doctorate.